miyay jirtaa gabadh-maayadu qarniyo hore siraha baduhu way daboolnaayeen daah-qaadisyadooduna ma sahlanayn se dhulka looga aamiyo noolayaal aan jirin ayaa badaha guntoodana aadanuhu isugu warrami jiray inay jiraan noolayaal abuurtoodu la yaab leedahay. noolayaashaas waxaa ku jira noole afka ingiriiska lagu yidhaaho meedmeedh, afka soomaaligana gabadh-maayo. waxaa la sheegaa inay ku qarsoon tahay salka hoose ee badaha. waa noole lagu soo warramay qaarka hore aadana ah, dhadigna ka sii ah iyo qaarka dambe oo kalluun ah. bulshooyinka qaar waxay siin jireen noolahaas awood ka baxsan nololnimada. carabtii hore badmaxyada ahayd waxay ku tiraabtay ama ay sheegtay in gabadh-maayadu tahay noole wejigeedu u cad yahay sida dayaxa, timo shuban leh, horaada haween leh, halka miskahana ay ku leedahay qaar dambe oo ka dhow. Charles Thomson buuggiisa The Mystery of Lord of Minster wuxuu ku tilmaamay in sheekada jiritaanka gabadh-maayo dib ugu noqonayso kumanaan sano. wuxuu tilmaamay in dadkii baabilyoonka ahaa halka gabadh-maayadu ula ekaatay nin maayo, sababtoo ah way weyneyn jireen, haddana maankoodu uu siin waayay inay weyneeyaan haween, sababtoo ah dumarkii xilligaa noole ayaanba qiimo la lahay. sidaa darteed waxay u bedeleen halka wejiga nin maayo. aragtii hore Giriiga waxaa laga helay inay u aqoonsadeen ilaahoogii badda ee Triton in uu soo dirsaday oo ay tahay nebiyad xaggiisa ka timid. khuraafaadkan keliya kuma koobna diinta Giriiga ee waxaa la qaba Hinduusamka iyo qaar ka mid a Afrikada oo ilaa maantadan u aaminsan ilaahnimo. cilmiga cusub ma soo bandhiga jiritaanka gabadh-maayada. marka laga yimaado hadallo tiro badan oo la sheego in goobo lagu arkay ee haddana ma jirto aragti cilmiyeed oo xaqiijinaysa jiritaanka gabadh-maayada. halka saynisyahanada ku doodiyo khuraafaad ahaanteeda keeneen weydiimo tiro badan oo maangalnimada xoojinaya. waxay yidhaahdeen haddii nooluu yahay gabadh-maayo, noolo kastaa wuxuu ka kooban yahay laba jinsi ee jinsigiisii labaad mee. haddii nooluhu keliya yahay gabadh-maayo oo dhidig ah, sidee u tarantaa? sooyaalka aadanaha inta gunta badaha lagu dhaadhacay waxaa la gaadhay gunta ugu hooseysa ee Mariana Trench oo ah 11,000 oo mitir. tirada guntaasba waxaa la xaqiijiyey noole kasta oo ku nool. haddaba gabadh-maayadu intaa miyay kasii hooseysaa? haddii gabadh-maayada aad u yeesheen jirka aadanaha noolayaasha ugu baahida badan ilayska cadceedda waxaa ugu mudan aadanaha. ilayska cadceedduna waxay ku go'daa gunta badda dherer ahaan 1,000 mitir. haddaba sidee u jirtaa nolosha gabadh-maayadu? oo weydiimo adag oo aan warcelin loo helin, halka daliilka u weyn ee haystaan dadka aaminsan jiritaankeedu tahay in Christopher Columbus arkay. halkaana dood kale ayaa ka qabta oo ah armay jirtay oo dabargooday. waa dood in lagu qanco keentay, kuwana ay qireen inaanay jirin, kuwaasina dafiri kari waayeen jiritaankeedii hore waaba hadday jirtee. isku soo wada duubo, gabadh-maayadu ma aha noole loo hayo jiritaan caddayn cilmiyeed oo buuxda, halka dadka qaar sheegeen jiritaankeeda haddiise la helo waa baal kale oo saynisku booqanaya jiritaanka noole hal jinsi ka kooban oo noloshiisu kala socdo waaba hadday jirtee. wararkan waxaa qoray Sakariya Jaamac.